madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland mudane Maxamed Biixi Ayunis wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland oo hogaaminaya wafdi ayaa ku yimid dalka booqasho hawleed oo qaadani doonta 4 maalmood waxaana u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane Cabdi Xuseen Axmed iyo wakiilka Somaliland u fadhiya Jabuuti mudane Maxamed Xirsi Qalinle kadib kulankaasi dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland waxay ka wada hadleen xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dhinac kadibna waxaan wareysanay waxa uu yiri wasku mid ah anna markii guuleysay madaxweynaha la kulmay ma aha madaxweynaha iyo dawladda Jabuuti si xoog leh oo qiimo leh oo qaaya leh ay adigu soo dhaweysay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo sida qiimaha leh ay noo soo dhaweeyeen hadaan ahay wasiirkii arrimaha dibadda ee Somaliland waxyaabahan ku wada hadalay waxyaabo ka dhaxeeya labada wadan ee walaalaha ah ee jaarka ah isaan wax wada qabsan lahayn ama ha noqoto xaq dhaqaale ama xaq nabadgelyo ama xaq xistar marka intaas aan aad uga wada hadalay